السلام عليكم سو dhawaada mar kale maanta waxaa idin wadaa barnaamij ku saabsan sidii aad u sugi lahayd ammaanka akoonkaaga Facebook waa arrin aad iyo aad u muhiim ah waxaad tagaysaa saddex dhibcood kadibna waxaad tagaysaa qaybta settingka ayaa tagaysaa settingka markaad tagtid kadib sidan ayaa kuu soo baxaysa kadibna waxaad taabanaysaa qaybta password and security qaybtaas ayaa taabanaysaa kadibna waxaa kuu soo bixi doona taleefanada loginka haddii aad aragto taleefon aadan lahayn ama aadan garanayn oo login ka saar si aad ugu saartana waxaad tagaysaa see all kadibna waxaa kuu soo baxaya qaybtan oo taleefanadii dhan ay ku safan yihiin kadibna waxaad taabanaysaa log out of all sidaas ayaad ugu saaraysaa dhammaan taleefanada loginka okay halkaasna haddii aad doonaysa inaad passwordka bedesha ayaad taabanaysaa waa cashar hore baan ugu soo samaynay maanta laakiin waxaan rabnaa inaan qaybtan sharaxno qaybtan oo ah sida aad barnaamijka ammaankiisa si passwordkaaga kadib aad u geliso tallaabo kale oo ammaankaaga aad ku sugaysid tallaabadaasi waxay noqon kartaa in fariin SMS lagu soo diro iyo in application lagu soo diro code haddaba waa saddex qaybood qaybna waa in application lagu soo diro codeka qaybna waa in SMS lagu soo diro midda saddexaadna waa mid aad soo iibso doonto fura aad ku xiri doontid ama ku furi doontid taleefankaaga ama akoonkaaga Facebook taasi hadda nama khusayso labada kale ayaan sharxi doonaa saad arkaysaan qaybta ugu sarreysa ee hadda uu saaran yahay haddii aad rabtid inaad isticmaashid waa inaad soo degsataa barnaamijka halkan ku qoran kadibna markaad soo degsatid oo aad ku xirtid akoonkaaga sideed ugu xiraysaa waxaad ku xiraysaa halkan ayaad koobi garaynaysaa linkigan ama barcodekaas kadibna barnaamijkaas ayaad tagaysaa markaad soo degsatid kadib qaybta kalena waa qaybta SMS-ka qaybtaas ayaad saaraysaa hadda sidaa aan soo saariyo kale sidaa ayaad saaraysaa kadibna gudaha ayaad u galaysaa kadibna wuxuu ku leeyahay geli lambarka lagugu soo diri doono koodka si markasta oo aan ka shakino aan kugu soo dirno kood kadibna waxaad leedahay confirm markaad lambarka gelisa kadib sidaas waxaa kugu soo dhici doona kood lambarkaaga si aan lambarka hadda u geliyo waxa uu weydiinayaa passwordkayga halkaas ayaad gelin doontaa passwordkaaga kadibna waxaad ku dhihi doontaa okay ama continue sidaas ayaadna ku diiwaan gashatay lambarka hadhow lagugu soo celin doono okay qaybta saddexaadna waa qofkay u gaartay waa halkan ayaad iyadana saaraysaa kadibna waxaad leedahay continue kadibna wuxuu kaa codsan doonaa inaad gelisid furahaasi aad soo iibsatay inaad geliso qaybta chargerka kadibna aad tirahdid register kadibna sidaasi iyo tilmaamaha lagu siinaya ayaad ku furan doontaa kuna xiran doontaa way daawadayaal muuqaalkeeni maanta tan iyo ku dhan yahay waxaan rajaynayaa inaad ka heshay ammaanka akoonkaagana aad sugi doontid like iyo share taak iloobin